yimid xilli ay boqortooyadiisa u baahneed. Wuxuu carriga Soomaalida u ka saaray boqortooyadii Xabashida, taa oo damaceedu ahaa gacan ku dhigidda iyo la wareegidda dhulalka Soomaaliya. Soomaalidu bilowgeediiba waxay caan ku ahayd dhaqashada geela, ayagoo xiriiro ganacsi la lahaa boqortooyooyinkii ugu xadaarada weynaa xilligaasi, sida Masaarida, Roomaanka, Farisiyiinta, Cusmaaniyiinta, Hindiya iyo kuwo kale oo dhowr ah, ayadoona lahayd magaalooyin ganacsi oo ku teedsanaa xeebaha Saylac, Berbera iyo Muqdisho. islaamku wuxuu yimid Soomaaliya bilowgii horeba intii hijrada lagu jiray. Marka waxaa la isku wada raacsan yahay taariikhyahanada darsa islaamka iyo Afrika oo dhan in daaqadii ugu horreeyay uu ka soo galay Afrika ay ahayd Soomaaliya. Imaam Axmed Ibraahim Al-Qaasi, oo sidoo kalena loo yaqiin Axmed Gurey, wuxuu ku dhashay dhulalka ay Soomaalidu degto, gaar ahaan dhulka Ogaadeen qarnigii 16aad. Imaamku wuxuu ku soo barbaaray diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida, wuxuuna yaraantiisiiba u bartay jihaadka iyo cadaalad raadinta. Markii uu koray, imaamku wuxuu arkay cadaalad darrada iyo dhibaatada gumeysiga boqortooyada Itoobiya ay ku hayaan muslimiinta. Sidaas daraaddeed wuxuu isu taagay oo isu xilqaamay inuu mideeyo muslimiinta iyo cadal, iyo sidoo kale inuu hormuud u noqdo halgaan badan oo ka dhanka ah boqortooyada Itoobiya. Imaamku wuxuu ciidankiisa u diyaariyey dagaal, isagoo ku xoojiyey fikradda Islaamka iyo xaq u dirirka, wuxuuna abaabulay xoogag ciidan oo si fiican u tababaran, kuwaasi oo isu taagay inay difaacaan diinta Islaamka iyo dadkooduba. Sanadii 1529, imaamku wuxuu dagaal weyn ku qaaday boqortooyada Xabashida. Dagaalkaasi oo la magac baxay Shimbir Qoorke ayuu guul weyn ka gaaray boqortooyada Xabashida, isagoo markaasina adeegsaday xeelado dagaal oo aan horey loo aqoonin. Ciidamadii Itoobiya ayaa lagaga adkaaday si xun, taasi oo noqotay guul weyn oo u soo hoyatay muslimiinta. Imaamku wuxuu sii waday dagaaladiisa, isagoo qabsaday magaalooyin badan oo Itoobiya ah, wuxuuna kaniisadihii u bedelay masaajidyo loogu cibaadaysto. Asaga iyo ciidankiisuba waxay guulo waaweyn ay ka gaareen boqortooyada Xabashida. Dagaalo badan oo ka dhacay gudaha Itoobiya, boqortooyada Itoobiya oo aragtay inay ku sii dhawaanayso burbur, waxay gacan gargaar ay ka dalbatay Boortaqiiska. Boortaqiisku wuxuu Itoobiya u soo diray ciidamo hub casri ah wata si uu ula dagaalamaan Axmed Gurey iyo ciidamadiisa. Laakiin taasi ma saameynin imaamku, oo waxa uu asagana taageero ka helay dunida muslimiinta sida Yemen, Cusmaaniyiinta, Hindiya iyo Masar, kuwaasi oo u soo diray hub iyo ciidamo xoojin ah. Halgan dheer oo intii karaankiisa uu ku difaacay Islaamka iyo dhulalka Soomaalida ayaa markaani waxay u muuqatay mid soo dhammaanaysa. Kahor dhimashadiisa waxaa la sheegaa imaamka Allah ka raali noqdee inuu difaacay qabrigii nebiga, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Sanadii 1543, Imaam Axmed Ibraahim Al-Qaasi wuxuu ku geeriyooday dagaal ka dhacay dhulka loo yaqaano Weyn-Dega, halkaasi oo ula dagaalamay ciidamadii Itoobiya iyo Boortaqiiska. Geeridiisu waxay ahayd mid aad ay ugu murugoodaan muslimiinta Geeska Afrika, laakiin halgankiisa waxa uu reebay dhaxal aan la iloobi karin. Imaam Axmed Gurey waxa uu dhaxal ahaan inooga tegay sooyaal taariikheed oo ku xardhan baalasha taariikhda, waana ku saabsan halganka iyo xorriyadda, mideynta muslimiinta iyo difaaca diinta Islaamka. Taariikhdiisu waxay weli ku jirtaa qalbiyada jiilal badan oo Soomaali ah iyo guud ahaan dunida muslimka ah, isagoo ahaa hogaamiye aan caadi ahayn, geesi muslim ah iyo tusaale ku dayasho mudan. Taariikhdiisu waxay tusaale u tahay sida halganka iyo mideynta looga gaari karo guulal waaweyn, waana halyeeyga Geeska Afrika iyo guud ahaanba mid ka mid ah halyeeyada Soomaaliya.